أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين بأمة الصومالية ملك جوجتا وعليه نبض وارتا ينور القمر وأسأل الظاهر أسأل الصعود أسأل التدون وإذن الله وإذن وضع جعل هاي صومالي أنت ونكسب أنت بديت هلك العاو حدوريا إن عن مركو كواد كسو جيديو همبليو وكوبي صدنكي أكتوبر سيدا درتي waxaan ka soo jeedinayaa hambalyo beesha mugga leh macnaha leh dhaqanka leh diinta leh oradka ah ee kala leh meel joogto waxaan leeyahay haydin macaanaato habeen wanaagsan hambalyo waxaan idinla wadaagayaa hambalyadiina dhalinyarada wiilasha iyo gabdhahaba hooyooyinka odayaasha saraakiisha saxafiyiinta dhinac kasta oo beeshu ay leedahay waxaan idin leeyahay waa idin salaamaya macal siyaasiyiinta intaa dabadeed waxaan doonayaa inaan laba qodob inaan ka hadlo qodobka koowaad waa waano iyo edbin ama tusaaleyn qodobna waa taariikhda beesha oo xogaa ka hadlo maadaama aan ahay inay isla socdaan isla abtidoon isla geedi isla jumcaale isla cumar isla axmed oo aan taariikhda wax badan ka hayo qaybna waxaa weeye in aan mujaahidiinta beeshan hambalyeeyo kuwa aan qirsanayn oo doqonta ahaan yac ka yidhaahdo beesha iyo taariikhdeeda intaanan gelin waxaan rabaa inay idhahdo islaw aamusan iyo ugaas aamusan islaw idiin shaqeeya sida anoo kala dhaama oo cadowgu u yidhahdo wuu waalan yahay iyo waa ay dhalay iyo sax maaha idinku marka in aad idinku garan weysaan aniga keliya maaha inta afka idinku difaacda oo waranka idinku difaacda ogaadana afku wuxuu la xoog yahay maqliga hawda kaa jara ee waran nafta kaa jara ayuu afka ka xoog badan yahay ma dhibaanka tumaalada yaxraha iyo yaxruuba ogaada wax dembiya ma gelin ogaada oo waran loogama adkaan waxaa looga adkaaday af markaasaa la gaarsiiyey heer gabdhahooda ay guursan waayaan kuwa iyagoo ay ka gobsan yihiin oo ay ka dhaqan fiican yihiin ka curin badan yihiin wax soo saar badan yihiin kuwa xoolaha sida maaragtay dacwada ama eyga ama muxuu ahaa libaaxa oo cuni lahaa iyagoo qayrin oo aan baraysan cuni lahaa yaxruhu dharkay samaayaane intaasay eed ku yeesheen adigaa la isku dayay in maqaarka lagugu caayo waan aniga ka jawaabaya lahaa cayr dagaaga oo aan cashayn codna laga dhaarshay rag cidood ugaarsada cidoodku waa ugaadha rag cidood ugaarsada oo maqaar goola ku cayaya oo ciribta meeshay dhigaan cowshu ku hayaanto oo xabag cadaad iyo ku nool garas la coodcooday caseeyaha raggii noo ahaa iyo kaba cilaameeya weer calaan is-oofaariyey oo caasha kolu taagay oo libaax cidiisii sida murursada giigdhe yaa oo libaax sidiisii is yidhi muxuu yidhi caseeyaha raggii noo ahaa iyo kaba cilaameeya weer calaan is-oofaariyey oo caasha kolu taagay oo libaax cidiisii is yidhi caawa kaga yeeri kiiyon codkiisii bedelin waagii ku caddaaday waagu markuu ku caddaado dugaaga gudaday galaan siima joogaan caawo dhan buu islaa sida libaax u cay waana weer calaan markaasuu cunihii boog yeeshay weer calaan is-oofaariyey oo caasha kor u taagay oo libaax cidiisii is yidhi caawa kaga yeeri kiiyon codkiisii bedelin waagii ku caddaaday oo cuuc iyo intuu lahaa cunihii boog yeeshay doqon aan cid loo dhiga la arag soo cajaaba maha wataan dad waska dhicin hadduu kula dhashay xataa wallahi waska dhicin
sidaa darteed war kuwa idinka dhicinaya wax iyo kuwa habaalaha iska cadow maaragtay sida abshir socdaal oo kale iyo dadkii u galay ninka Dawil Cabdimadow iyo xasan jawle jimcaale iyo war dadkii u galay kaligood maaha waa yani waa kumanaan dadkii u galay xabaasha u galay war dadkii idinla sinaan ha noqonina mahmahdii aan bixiyey ee ahayd saddexiiba waa ku daciifsadaan ha daciifsanina qofka ninka ragga ah idinku jira duul waxay ba'aan markay diracooda aqoon waayaan mahmahdii aan ku soo diray af Soomaaliga waxay ahayd saddexiiba waa ku daciifsadaan dumar aad ka gabowday haddaad gabowdo gabadhii shalay xoogaa isha hoosta kaa fiirinayso iyo kusoo fiirin mayso waa nin karmeed dhihi mayso allow maxaa raganimo ku jira ku odhan mayso mid baac ah oo kaa da'yar bay raacaysaa marka da'deeda soo gaartad ma ogaanaysaa dumar aad ka gabowday doqon aad ka dhalatay iyo dooxo aan lagaa aqoon ama dal aan lagaa aqooniba waa ku daciifsada ha noqonina marka doqonta noocaas ah war ninka idinku jira kor u qaada doqoni diriceeda ma taqaano ee doqon ha noqonina rag iyo rag kalkaal iyo rific saddexdaas hay idin kala saaraan raggu saddexdaas u kala baxaan oo dumarka u kala baxaan amag looma baahne waa la is ixtiraamaa waxaan halkan ka fasaxayaa nin la yidhaahdo Daadir Guure Cadow oo South Africa ku nool waxaan siiyey shahaadada geesinimada raganimada aftahanimada Daadir waad fasaxanta waxaa se qalma ayaan darrada na haysataa aqoon la'aantaada inaad la firi hadda sida qoladii ilaahayd xamar cununka ah haddii ay caqligaaga iyo damiirkaaga iyo dadnimadaada aadan ma joogi karin waxaadan aqoon haddaad damacda inaad maamusha Xasan Vijay Kumar oo kala soo baxdaa markaasaad waxaad la gashaa xabaalo qodasho iyo ilaahay qeydkii u sujuudis iyo haddii ilaahay kuu ran jigjiga waa xorriyadna uma baahna iyo xamar inta bug haddana bug maxaa lahayd sheeg qaraxa ka dhaca muqdisho waxaan ka nacayo kan isla kala yani waxa haddaadan aqoon inaad maamusha haddaad damacdo meel aysan lahayn baa la aadaa waxaan arkayay South Africa iyadoo lagu soo dhaweynayay mashalaya ama soo daraad walaasheen Faa'iise Jayte halyeeyadeena waxaa duubaya oo Facebook ka duubaya Daadir Guure Cadow mid baa marka wuxuu leeyahay safka gal الجاهلنimada inta cilmi magac asaas ah leeyahay ma rabo inaan ku talaxtago laakiin inaan wiilkayga runta u sheego xidid mihin ee xigaalana waxaan aqoon baad ka shaqaynaysaa hadduu safka galad Daadir filinkiina duubayo ma wuxuu duubayaa meesha banaana hortiina ilaa saf baad ka jeedaan si yaa duubaya dadkii tiradooda yaa duubaya markaas Daadir wuxuu leeyahay مع القارنة الرابع فيني سرت مش وكسي داي يعني كاني كي صفقة قليل يسيقى وعاني سلايا وقرب جب سارة مش وقرب جب سارة ما هو مقالي إيو مامو Daadir Guure صفكي وقالك انت يسيقى ولا الكيس قب سارة عيان صفكي وقالك لو ما تشيدوا ضدك صفكي لو ما تشيدي كلا ضدك انت يين لو ما تشيدي كلا يعني وحاوية وأقول aqoon la'aanta maynaan lahayn jirin hadday nagu soo biirtay oo wada qabsateen dadka aqoonta aan lahayn waxay nagula nacbaa oo waxaan nagula nacbaa baxay ay dadka inta ka ilbaxsan maxaad marka galaysaan kategorigii kuwii nacbaa ee nagu nacay maxay nooga ilbaxsan yihiin maxay nooga tiibaad cariirsanaysaan oo noqoteen oo la qabsateen waa in qofka uu wax duuba firi Jacfar meesha noogi ولندن مسلامين والله يا حتى مسلامين ما عندوبي دتك سلامه دتك سو دوين يتريدو وهو Daadir muxuu yahay howshaas waay safka gal okay safkii uu galay marka muxuu duubaya marka muxuu jeedaa ila safkii uu ku jiraa saf balaaran baa lagu jiraa muxuu duubaya marka soo duubi kara waxa reer baadiyaha cali yeeshaan meela
dadka wax duuba iyo dadka idin hada ixtiraama afku wuxuu la xoog yahay maglaga xawlda ka jira xoolayo meel firi wax kale qofka aad wax ku tahay waa dad goori wallahi billahi kasad ku leedahay ha isku dayin marka inaad cariirisay korqad waxaan baan ixtiraam cabdirasaaq muxuu ahaa kaba yara ixtiraam aniga habaygu daran haddaad doonto diidii ixtiraam inta idin hadashay macnaha la ixtiraam oo dadka idinkaga duwanaadi haddii kale wallaahi bilaahi tallaahi waxaad soo baxaysaan inaan guud yaana ka dhigaya waxa noocaas war dadkaas waa la hormariyaa war geesigiisa ninkaan aqoon geesigu waa ayu geesigu waa ninka kuwa ugaaskaygu hadduu aamuso aniga isla waaladan aamuso maxaan taraynaa haddii uu daadir goor aamuso safka gala ariyaa safka gala taagnaanaysa yaa ku jeeda isla yaaba gobowaan yaasa ilbaha noqda dad ilbaha noqda intaas waa canaantii reerka gabdhaha waxaan rabaa guud ahaan soomaalida oo dhanna waa ku arkay gabdhaheennana waa ku arkay xaflad bay imanaysaa meel qof lagu soo dhaweeyey imanaysaa yaa waraahay duubani ku leedahay marka hay duubi maxaa kasoo doonta meesha aroosaa tagtay xafladaa tagtay qof had soo kaamiroolaa jooga hay duubin maxaad kasoo doonaysa suuraha noocaas oo nacasnimada dadka kale inaan kuma naqan dadka ilbaxsan ama ha imanina guriga habartaa joog iyo guriga ninkaaga nin haddaa tahayna warnaakaada la joogo xafad meesha waa iman haddii kale qofka wax duubay kaamirada meesha waa joogtaa iska beena sheegi show qofka iyo iska dhaaf nacasnimada reer baadiinimada dadka aan guursan jirnay hala mid noqon hana ceebaynin aala ku dibi kaamirada xaflada timid aroosaa timid qof meel lagu soo dhaweeyay kaamirada hay duubin waxaas khaniisiyeynta ordaha oo shaashlayda u geeya ha loo keenanay intaasna waa inta taariikhda rabaa inaan haya laba keeyo besha kan la baaxadda weyn horta calankan iyo maalinta loo dabaldigayaan doonaya ummadda inaan u sheego anigu waxaan ahay nin Soomaali ah waxaan horta nin muslim ah waxaan ahay nin Soomaali ah waxaan ahay nin Kanada ah waxaan ahay nin Mursala ah haddaba walba waxaan ka jeclahay inaan helo hal qabiil oo Soomaali leeyahay beesha kalena dhaqankeeduna waa sidaa afkoodina aniga ah waxaan ku sugayaa karannimadeyda iyo hawiyanimadeyda karannimadeyda mursadnimadeyda waxaan ku sugayaa inta aan ka helayo qabiil Soomaali la yiraahdo laakiin inta qabaa'il sideedoo kale ay yihiin halkaygaasaan joogayaa ina waa kala naqaanaa haddaan beeshana islaamnimadeena inaan difaacano soomaalinimadeena inaan difaacano beesha aan nahayna ee kanaalana inta beela leeyahay inaan difaacano ummadda Soomaaliyeed nabadgelino cidina soo doonatana aan weliba nidhaahdo saas kani ibn aadamka caadiga ama afar roob u yeeshaa habeenkii hadduu doono maqaalkana waa dhoofsadaa ee isdiji in ugu duulayo uga faa'iideeyo ma jiro waa ka xumahay kumana faani karo oo heladay baan dilay kumana faani cidda ku faanaysaa ku faan tolkay baan dilayo Soomaali ah ninka ku faanaya haweenan gubeed anaga ma waxaan ku duulahay waa badan yihiin ahmaara dhul naga haysta Itoobiya baa naga haysto oo waxaan naga haysta nimanka la yiraahdo ma garanaysaa Kenya daan wax dilayno kuwaasana leen wixii dambi hongalna Allah naga cafiyo waan ka xuna ee Soomaaliyeed dilay oo aan ku qasbanayn oo aynan weligeen aysan dhicin duulaan aan qaadnay oo aynan ku qasbanayn ilaahay fardaha nasiibana ma hadda iska laha iyo raggeeyaga ah calanka aan samaynay waa calankii ugu horreeyay ee qabiil oo samaysto markaan soo xasuusto waxaan isleedahay wuxuu qalad gashay rag anigu aan kamid ahaa ka taliyay kan Soomaaliyeed iyo kan maamul goboleed iyo ku jabhado leedahay waa naga horreeyay laakiin qabiil sida karanla oo kale ama daarood ama majeerteen ama dhulbaata maamul ma sheegay
reerkii ugu horreeyey ee calan qabiil samaystay baan waagii horena beriga talyaanigu joogay iyo dowladii musuq maasuqana calan baan lahaan jirnay 5 farood iyo calaacal ay ku sawiran tahay cidii xasuusataa ayaa xasuusata ama joogta calan baan lahayn 5 farood iyo calaacal laakiin murusaday ahayd kani waa karan la oo dhan hal ujeedaan u samayn maadaama dhulal aad u kala fog oo ilaa hawiye case ama hawaase ilaa diri dhabay afkeeda gobolka city meesha la yiraahdo hadii ay ku runaya email dhagaxle iyo xaadow baabiley eelbur iyo galhareeri jacri iyo bergaan wabxo iyo muxuu ahaa hadii ay ku runaya tawfiiq hadii ay ku runaya diri iyo caws weyne ilaa iyo afka xamar ee meesha la yiraahdo wardhigley hodan holwadaag wardhigley holwadaag hodan waa beri dayneele dameeraale doondheere warmahan ilaa iyo shanta day ilaa iyo afka walaweyn maadaama aan deganay ilaa janaale si aan isu ogaano saasaan u samayn umaynaan samayn soomaali iskala weyni iyo soomaali iskala qaajin iyo qabyaalad fogaatay laakiin inaan maadaama aan meelo badan oo kala fog degannahay in aan haddana qurbaaba la aaday intaas horta soomaaliya u samayn qabiil walbana waa naga daba samaystay in qabiil walba naga daba samaysto oo waxa ay qabyaaladu kala waa ka xunnahay soomaalidana raali gelin baan ka siinayna apologies maadaama aan belo horseed laakiin ujeedkeenu kaasoo ah raali gelin ummadda soomaaliyeed ilaa reer walba maanta inuu samaystay baa dhacday sabab baan u noqonay raali gelin ka bixinayno gobi waa tii qaladkeeda qiratay ujeedkeenu sidaas oo ah qalad baa soo baxay raali aado kamaarmi waabay nala noqoto afka city ilaa iyo afka hadii la ku reeyo meesha la yiraahdo ilaa afka naazireed hawaasa oo ah hawiye case aqdi ba ka maqan ma karaan qolooyinkaas oo hawiye case oo dir dhaba iyo looga city looga yaqaan kala ma yaqaan hawiye case isa weydiye dhinacan email ilaa iyo afkan kaleeta ee baabiley iyo dhagaxle iyo jigjiga duleedkeeda maadaama aan kala fognahay ilaa iyo ceelbuur ilaa galhareeri ilaa iyo xamar taasaa ilaa janaale ilmaada taasaa lagu kaliftay taasaya laakiin qaladkii soo baxay raali gelin baan ka bixin intaas waa intaa beesha kalan leh waa beeshii uu ka dhashay dhagaxtuur axmed gurey cilmi nuurtarey hadda waa dadka la wada yaqaano qolooyin waxaan arkay son daacaya oo axmed gurey ku sheegaya qolooyin kale axmed gurey horta waa ninaan wada leenahay uma halgamaynin karan leh uma halgamaynin si hawlo karan leh uma halgamaynin hawiye wuxuu halgamayay wax naga badan oo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka walaal sidaa darteed ha jahwareerinina abtirsiyadiisa ee ka xishoodan in Ilaahay ku cadaabay oo xishooda oo isla yaabo abtirsiyadiisa laba jeer aabihii dhalan maayo dhashiisana waa la yaqaanaa taariikhdiisana isdoorin mayso midna waa idin sheegaya waa in qofka horta qolada sheeganaysa waa inuu dhaqan ekaadaa hadda waa in qabiilkiisii laga fahmaa waa in hadda laga fahmi karaa dhaqankiisii dad aan dhaqankiisiiba lahayn oo aan geesinimadiisii lahayn oo aan iskaga jeedo baa sheeganaya waxaa la isla yaaba gobi waa inay istiraadahay talabaad iimaansada saasoo lagu wada deeqayo Soomaaliba uu halgamayay ha ku deeqo abtirsiyadiisana ha jahwareerina kaama xigay taas waa ka taa axmed gurey cilmi nuurtarey shaqsiga keliya ee Soomaali oo dhan marka la isu geeyo dowlad Soomaaliyeed markii la dhisay waxay ka dhigan tahay waa Soomaali oo dhan ee dastuurkeedu uu yahay qofka Soomaaliga ahi muqdisho gurigu doono ka dhisan karaa baasaboorka Soomaaliyeed buu ka qaadan karaa ama Djibouti ama Jigjiga ama NFD ama meel walba uu joogo waa Soomaali ninkii ay labada bilad geesi siisay everything is okay brother don't worry do it what do you want everything then waxaan rabaa inaan idiin sheego laba bilad geesi shaqsiga keliya ee laba bilad geesi haysta ha waa jiraan kuwa bilad geesi haysta
hal bilad geesi laakiin laba bilad geesi Soomaali yeesha wallahi billahi talaa cilmi hortay kaliya ummadda Soomaaliyeed baa inta isu timid waa dowlad ayay u garteen laba jeer 1964 iyo 1977 bilad geesi ayaa haystay Maxamed Cabdulla Xalane oo meeyda ayna nurtayba ugu horeeyay qof bilad geesi loo xiro halka loogu xiro jawda korkeeda Maxamed Cabdulla Xalane oo reer Albuur aswan dilla ahaa oo hadii ku horeeyay meeyda oo cilmi ku xira furay ayaa asagana la saaray xaqna waa lahaa calankeena u mid General Daawud oo ahaa taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya marka la wado oo abaal marin looga dhigay maadaama ciidankeena tiradiisa intay la kaani iyo guushi asagu dagaal kuma qaadan ee wuxuu ku qaatay ixtiraam nin fiican waa aad u fiican iyo inuu taliyihii ciidanka qalabka sidaa oo markaa guuleystay uu ku qaatay doonyaale oo asagana nin reer Albuur ahaa inta Albuur baa laga xukumay نوع العلبر هو جل داود محمد عبد الله حرامي والرعي البور وننزل دنيا وننسى لبعض لكن الرعي البور علم المبتلين وهو مرسل هو أثر كالبور سيدي درتي كوني يسقال بقول تضبيه تضعتك لو يسديت نبغى غاطي السجن كريه هالولبي وايو ما لها إيش دنيا رانو الله يله أنت كلام جنود داود وعد أنتي ما عبد الله حرنا ما كسب ميدو أها نك اللي يرادو جنود داود وعد أنتي جنود داود وعد أنتي حرنا ما كسب أنتي دنيا له نراسين وحامد لبعض السيء بالجيس لبعض السيء المرتب reerkana waa reerka ka soo dhashay hadii xataa la yiraahdo General Daawud maaha Ahmed Gurey duusan xataa noqon lahayn muxuu ugu wanaagsan dhagaxto barigii Talyaaniga ta magaalada Ceelboor waa magaaladii la yiri ugaaskeeni ugaas farcada Ilaahay oo naxariistay waa magaaladii uu yiri kal Ceelboor ana ka gaala oo wiilku u lahaa warka hore war soo dhaaf oo ugaas waayeel qolof lahayd ee uu yiri mandhow magaala markaas yiri ha markaas yiri kalkal makay to salka ka jafshaftay ciidii u fadhiyay jarbu nin la ciyaari albur man dhayana ka gaala laba gaal baa lagu dilay reerkii dilay midnin ma dhibaana baa la siiyay hantiyo waa meesha ay ka dhalatay la yiri geel qaado 100 geel qaadee dilminka diga badan ninka dhintay markaas yiri geel way ku dilaysaan loo iga dhiga 100 iyo dibigeedii la siiyay waa meesha ay ka dhalatay mashaqa waa tan oo kale iyo mid gallo leh waa meesha ka dhalatay gaf bay saxay kelmadaas ilaahay jannada ha geeyay ninkaas nin gobo ah ninkii dilay midna in muslahadii isku soo duubo reerkani waa hantida ummadda Soomaaliyeed 70s-kii xagga maamulka qayrra ka dhashay iyo Maxamed Sheekh Cusmaan Meekaal oo aad ogtihiin dawlad aan salka u dhigin marka ay wax maamulayaan waa reerka sidaa ku ah iyo Soomaali iyo jacaylkeed marka ay noqoto ilbax oo dadkii maqaarka dhoofin jiray wax alaala wixii soo dejin jiray waxaad aragteen hadday miisaan tahay hadday Toyota tahay hadii bariga dambe habiska wareejay xataa ummadda wax u qaybiya u fiirso xash uu hiriyay markii hore waxa la siiyay ilsida Toyota Mazda iyo miisaan waxa labada kala waa qaybiye dadku waa in wax la yeeshay yaa uun ka arag hadday noqdaan wax walba korka uga ruqtugsato waa hogayahay hadalkayga afraad ka dib waa dhamaatay waxaan leeyahay nin walbo haddaad doonayso waxaad ku faanto taariikhdii hore haddaadan ugu gaarin war haddaad samayn kartaa hadda samay waqtad hees gelin tan awooyaashay baa ka soo shaqeeyay awooyaasha ka soo shaqeeyay aniga ila min noqo wanaag baa noo wada dambayn doona wanaaga ugu mid aniga iyo roon waana waxaan aaminsanahay haygula diriirin maxaad iga hormarsanaatay
reero aan tolnahay baan ku arkay maxaad iiga fiicnaan jirtay maxaad iiga hanti badnayd maxay soomaalidu kuu jeceshay aniga ii necab tahay war waxaasoo waxa weeye waa wixii hore dhacay hadda toosi oo iska sax halkaasaan ku soo koobaya hadalkayaana sii badanay waa isla daahir isla socdaal isla qabto doona oo idin leh aba good night